سلامنا صاحب يال kusoo dhawaada janaalkeena maanta waxaan wadnaa filim kale xiiso badan qisada filimkan waa mid dhab ah balse korta muuqaal kula daag waxa ka codsanaya muuqaalkana like noo saarto sidoo kale aad kamid noqoto asxaabteena kuwii ugu qiimaha badnaa sidoo kale sheekada filimkani waa mid kamid ah dalabka imaaday asxaabteena kan waa ninka kaliya keenay xaalka uu fududa aad ku qaadan leed go'aanka ugu fiican ee noloshaada tan waa qisada dhabta Professor John Nash taasoo dhacday qarnigani 20aad ninkan ayaa wuxuu ahaa nin aad iyo aad u caqli badan laakiin wuxuu la tacaalay xanuun maskaxeed oo halis ah filimka wuxuu tusay halgankiisii jacaylkiisii guulihiisii iyo sidii ugu noolaaday cudur maskaxeedkiisa schizophrenia filimka wuxuu ku bilaabanayaa sanad markuu 1947 iyo John Nash oo imaanaya jaamacad Princeton si uu barto cilmiga xisaabaadka jaamacadaasina kaliya waxa dhigtaan arday aad iyo aad u caqli badan qof walba wuxuu rabaa inuu gaaro guul qof walba sidoo kale wuxuu rabaa inuu noqdo saynisaanka ugu fiican caalamka laakiin Nash wuu ku duwan yahay ardayda kale ma jecla inuu soo dhex galo inuu dhex fadhiisto ardayda sidoo kalena mar walba uu aaminsan yahay oo ma buuq badno sidoo kalena wuxuu dhahaa waxa aniga aan qorayo kaliya inuu aado wax aniga ii gaar ah wuuna ku celceliyaa welibana isagoo raacinayo ma qorayo wax aan meel ka soo xigtay sidoo kale John wuu neceb yahay inuu qaato 10 fara badan sababtoo ah maskaxdiisa kaliya waxay rabtaa inay hesho hal fikrad oo bedeli karta caalamka macallimiintiisana mar walba waxay ka dawadaan 10 fara badan iyo exercise markaas John waxa la saaxiibaa ninkan oo lagu magacaabo Charles Herman oo ah nin mar walba faraxsan oo hadana qosol badan welibana isagoo noqonaya saaxiibka ugu dhow ee Nash waxayna mar walba isku raacayaan goobaha baashaalka sidoo kale mar walba ay sheekaystaan oo isfahmaan labadooda qor sidoo kale labadooda oo kaliya mar walba isla qaata waqti qurux badan laakiin daawada hal run ayaa jirta taasoo ah mid aad iyo aad u cabsi badan oo aad la yaabi doonto adiga xitaa Charles Herman ma ahan qof jira waa qof kaliya ay samaysatay maskaxda Nash Charles John Nash oo kaliya ayaa arki kara dadka kale John waxay ka aaminayaan inuu yahay qof maskaxda ka waalan balse isaga midaas ma oga balse asxaabtii jaamacadda qayb kamid ah waxay ogaanayaan Nash inuu maskaxda ka xanuunsan yahay balse maalmaha kamid ah Nash isaga asxaabtiisa ayagoo joogan meel baar ah oo baashaale waxa bahal meesha ka soo muuqanaya gabdho fara badan oo hadan aad iyo aad u qurux badan gabdho soo jiidasho leh dhalinyarada meesha fadhiday oo idin weel jaleecaan quruxdooda ay soo jiidashadooda markaas dhammaan dhalinyaradii waxay ku doodayaan qoftan hadii aniga heli la saaxiibada hadii aniga heli la imid kaleba laakiin John maskaxdiisa markaas si fiican ay u sii shaqeynaysaa balse Nash taas waxay ku dhalisay fikrad aad iyo aad u weyn taasoo ah sida qofka uu ku qaadan karo go'aan degdeg ah fikradiisana waxay noqotay dadka guul bay helaan markay ka fikiraan danta guud iyo danta gaar welibana hadii labadooda isku dheelitiru wayba ugu sii daranta waxa imaanaysa guul aad iyo aad u weyn tanina waxay dhalisay fikradii caan ka ahayd ee Nash Equilibrium taasi oo laga wado xaaladda qof walba ku sameynayo go'aanka ugu fiican ee noloshiisa welibana markuu soo ogaado go'aanada dadka kale sidoo kale qofna faa'iido meel hadii uu go'aanka kaligiis uu bedelo tusaale fudud laba qofood ayaa waxay dooranayaan inay meel casho aadaan mid wuxuu jecel yahay shaaxa midka kalena wuxuu jecel yahay kaliya inuu cuno buskut laakiin labadoodu waxay okiin hadii uu mid baaqdo midka kale kaligiis inuusan bixi karin markaas labadoodu baxayaan waxay tagaan meel leh shaax iyo buskut sababtu maxay tahay sababtoo ah hadii qof kaliya uu baxo meel shaaxa uu tago kaliya ayuu noqonayaa go'aankan muusan in qof kaligiis inuu baxo marka labadoodaba xaalka ay doorteen waxa loo yaqaanaa Nash Equilibrium waana go'aanka ugu fiican qof walba uu qaadan karo marka uu ogaado wax kan kale uu sameeynayo mar kale Nash waxa loo diraa jaamacadda MIT adigna daawada ilaahay muuqaalkana like noo saarto Nash jaamacadda MIT waxa loogu diraa si uu soo sameeyo cilmi baaris oo isagana uu noqdo cilmi baare weyn markaas hal mar wuxuu la kulmay Alicia oo ah ardayad dhigata jaamacadaas markaas Nash wuxuu ka leeyahay quruxdeeda wuxuu bilaabay inuu iska dhigo qof furfuran Alicia waxay dareemaysaa ninkan inuu yahay aad iyo aad u jilcan sidoo kale inuu yahay qof leh qalbi dahab ah sidoo kalena aan la heli karin markaas labadoodu waxay bilaabaan jacayl dhaaf inay isku qaadaan ugu dambeyn way isguursanayaan markaas Nash waxa uu imaanaya in lagu magacaabo Bashir ninkan wuxuu sheeganaya inuu ka shaqeeyo sirdoonka dawladda markaas wuxuu ku dhahayaa Ruushka waxay inoo soo diraan fariimo qarsoon sidoo kale wuxuu raacinaya qof adiga oo kala ah oo kaliya jibin kara koodka inoo soo diraya wuxuu ku dhahayaa waxaad u shaqeyn doontaa si qarsoodi ah saacadan laga bilaabo waxaad kiminta sirdoonkeena qaranka Nash ayaa markaan wuxuu arkayaa sawiro qoraal qarsoon iyo magacyo kala duwan Nash dhammaan waxa uu arkaa wuxuu aaminsan yahay inay dhab yihiin oo isagu rumaysan yahay sidoo kale Nash markaan wuxuu aaminsan yahay in socdo dawladda Ruushka oo isaga raadsanayso balse baajar maahan qof jira waxa soo idilna waxa abuuratay kaliya maskaxda Nash ayaa markaan wuxuu bilaabay inuu si aad u cabsoodo welibana isagoo mooda dadku idilnay rabaan inay dilaan gaar ahaan Ruushka Nash xaskiisa Alicia waxay arkaysaa qolku isagoo ku jiro inuusan qofna ku jirin meel la yaabinta wuxuu isaga sameeyay sidoo kale waxay arkaysaa qoraaladan oo ku qoray darbiga inaysan waxa aan micno lahayn sidoo kale Alicia waxay leeyahay magacyada uu sheegayo Bashir iyo Charles iyo waxyaabo soo leeyahay markii sababtoo ah meel magacyadaas uu ku sheegay mana jiraan wax la yiraahdo magacyadaas oo nool isla markaas waxay bixisa dhaqaatiirta Nash waxa loo qaaday isbitaalka dhimirka dhaqaatiirta Nash waxay sheegaan inuu qabo cudurka loo yaqaan paranoid schizophrenia laga raacno saaxiib hadii aan khaldo dhaba xanuunkan qofku wuxuu ka dhigaa inuu maqlo inuu arko wax aanan jirin Nash ayaa markii hore wuxuu diiday in la daaweeyo balse nagtiisa ay ku qanacayso kadibna uu ogolaanay in la daaweeyo daawooyinkan si xoog leh ayaa loo siinayaa balse waxay ka dhigaan qof aan waxba qabsi karin oo caajiso lamana fakirayo isaga sababtoo ah daawooyinka ay kareebaan inuu fikir maskaxdiisa uu mashquuliyo oo daaliyo Alicia waxay noqonaysaa qofka kaliya garab istaagaya Nash markaan wuxuu ku dadaalay
dadaalaya caafimaadkiisa daawadana xoog ay u qaadanaya sababtoo wuxuu rabaa markuu daawada u joojiyo kadib maskaxdiisa sida caadiga inuu isticmaalo isagoona raba maskaxdiisa inuu ku qabsado waxyaabo aad u fara badan dib markii uu dhammaan daawooyinka Naash waxaa soo laabanaya hal abuurkiisa iyo maskaxdiisa quruxda badneed sida aragtidii maalawaalka ee Taamar waxay ku laabanayaan maskaxda Naash ayaa markaan wuxuu qaadanaya go'aanka ugu wanaagsan ee noloshiisa taasi waa inuusan aamin doonin waxyaabaha uu arkay waxyaabaha uu maqlay kadib Naash midaas inuu sameeyo waa halgan nololeed oo aad u adag marka la adeegana daawadaha ilaabin muuqaalka in like inoo saarto sanado kadib Naash wuxuu ku soo laabanaya jaamacadiisii Princeton si uu wuxuu soo bartay oo ardaydan kale uu baro inkastoo wili uu arko Charles iyo Barger haddana uu iskandhatira oo kuma mashquulay waxyaabaha soo dil oo arkay isaga Naash mar walba ardaydiisa su'aal weydiiyaan si degan oo qurux badan ayuu ugu jawaabaa wuxuu noqonayaa macallin si tartiib ah u hela ixtiraamka isagoo xitaa ku guuleysanaya dhammaan qalbiyada iyo maskaxda ardaydiisa ugu dambeynna waxaa loo magacaabayaa Nobel Prize Mr Naash sidaas ayuu ku noqonayaa macallinka ugu fiican adduunka Mr Naash hadal cajiib ayuu ku jeedinayaa munaasabada Nobel Prize-ka wilibana isagoo dhahay jacaylkii Alicia ayaa wuxuu noqday iftiinkii noloshayda sidoo kale wuxuu raacinaya hadiisan ayda jirleen isaga inuusan badbaadi lahayn saacadaan umar hore waalan lahaa ugu dambeynna Naash uu guuleysanaya wilibana isagoo ku celcelinaya aniga waxaan u noolahay Alicia darteeda Naash ayaa guuleysanaya wilibana isagoo la nool weli xaalad aad u adag iyo cudur xanuun badan qisada filimka waxayna tusaysaa maskaxda bini'aadamka inay tahay mid xoog badan midaasoo mararka qaar dhaawacanta inay kasoo kabatana dhaawacaasi adag tahay mar kale saaxiib ha ilaawin muuqaalkan like inoo saarto sidoo kale janaalkana subscribe soo dhaadaya Facebook na daawadina follow inoo soo dhaahdo sidoo kale qisada filimka waxaa ka baranaynaa hal abuurka iyo xanuunkan isku mar ay jiri karaan qisada filimkan sidoo kale waxaan ka fahmaynaa in guush dhabta ay timaado marka aad fahamto adiga naftaada Professor John Nash wuxuu noqday mid kamid ah maskaxdii ugu weyneed ee qarnigii 20aad inkasta oo uu la noolaa cudur aan la daaweyn karin inta ugu muhiimsan waxa taa hadii aan isbarbar dhigno qisada filimkii Mr John Nash noloshiisa dhabta ah waa isku mid libana ayadoo isku mid ay ka yihiin aamusnaanta iyo inuusan jeclayn bulshada inuu dhex galo John kaliya wuxuu jecel yahay kaliya inuu noolaado sidoo kale abuurka iyo inuu keenay qaacidadaas quruxda badneed adigana daawadaha ilaa muuqaalkan like inoo saarto kuma buurin oo ku soo dhaweeyna kamid noqo asxaabteena mahadsanid